gacanta magaalada Hargeysa. halkani waa taalada gacanta Hargeysa. taaladani waxay ka mid tahay meelaha xusuusaha ama meelaha muhiimka ah ee waddankeenu leeyahay, taasoo la xuso ama la xasuusto mar walba. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو محمدينو فضل سبسكرايب صادق من نقطة مني كان وحدنا maanta waxaan ku sugannahay taalada gacanta magaalada Hargeysa. waxaan doonaynaa maanta inaan fiidiyo soo diyaarino faraha soo diyaarino. alxamdulillah rabbil caalamiin. halkan aan joognaa waxa weeyaan waa kaalin sideedaad. waliba waxay tagan gaar ahaan astaanta kaalin sideedaad oo ah gacanta imika oo dibaabay lagu sameeyay oo laga dhigay meelo dalxiis. maalmaha jimcaha kale waa la yimaadaa iyo waa meelo lagu shaaheeyo jawaab jeeda sawirta. taaladan waxaa la aasaasay amba la sameeyay 20 sano ka hor, waana markii waddanka haystay ama uu maayarka ka ahaa maayar Cawl Cilmi Cabdalle. sidoo kale taaladani waxay soo martay marxalad fara badan, hadday noqoto dib u cusboonaysiinteeda ama dayactirkeeda. halkani waa degmada Maxamuud Haybe ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan xaafadda kaalinta sideedaad. waxaa ku yaala taalada caanka ah ee loo yaqaano gacanta, taasi oo ka mid ah astaamaha aadka ay bulshadu u taqaano ee ka dhisan magaalada Hargeysa, iyadoo la sameeyay xilligii uu magaalada Hargeysa maayarka ka ahaa Cawl Cilmi Cabdalle. sidoo kale taaladani waxaa dayactir ama dib u habeyn ku sameeyay maayar Mooge sanadkii markuu ahaa 2022. sida haata sawirka ka muuqata ama sawirku inoo turjumayo. sidoo kale taaladan waxaa si farshaxamaysan loogu qoray ama loogu muujiyay 6 gobol ee ka kooban tahay waddankeena Somaliland, sida Togdheer, Saaxil, Sool, Laascaanood, Waljeex, Awdal iyo Sanaag. sidoo kale waxaa lagu beeray dhir aad iyo aad u badan si ay indhaha dalxiisayaasha u soo jiidataan. dhirta lagu beeray waxaa ka mid ah timir iyo geed ubaxeedyo kale oo doonaya in lagu qurxiyo meesha. taaladan waxaa subax walba ka howlgala shaqaale loogu talagalay inay qurxiyaan goobtan si ay u noqoto goob dalxiis. beernay waa dhir kala duwan, waana dhir fara badan. waxa ku jira ubaxii baa ku jira, waxa ku jira geedka harkaa baa ku jira, waxa ku jira hibaaqi baa ku jira, waxa ku jira ay nooc dhirtii ubaxa idinkama maqnaa. iminkan oo kale waxaa la yidhaahdaa oryaandha baa la yidhaahdaa. kan oo kale waa hibaaqi, kaasoo kale waxa weeyaan waa masiinga, kaasoo kale waa faraawlmoodkii, kan oo kale waa dhagayarihii, kaasoo kale isaguna waa faraawliintii, kan oo kale waa geedka ubaxa caddaanka iyo ubaxa casaanka, mid kaloo greenan uu leeyahay. marka calanka Somaliland baa laga sameeyaaba. marka waa faraawliintii baa la yidhaahdaa. kan oo kale isagana waxaa la yidhahdaa afro baa la yidhahdaa. afro waa ka magacyada lagu qorqoray weeyaan. tan oo kale iyaduna waa carmadii weeyaan. kan waa faraawlmuuskii. shimbiriyo adigan arkaya xoortii badeedii. qaar kalena waan soo wadnaa xooro iyaguna dhowr midho ilaa 10 midho noocaasaan soo wadnaa oo cagihii leh. marka waa badeedii weeyaan. dushoodana waxaan ka beernay dhibaan ka beernay faraawlmuuskii weeyaan, hibaaqii weeyaan, duraandihii weeyaan. marka waxaa halkan noogu soo dhammaaday dalxiiskii gaabnaa aynu ku booqannay taalada gacanta magaalada Hargeysa. fadlan hadduu fiidiyogan ku soo gaadho sii sheer garee, like and comment si uu gaadho
asxaab fara badan oo jecel in lagu soo xulmaan